برزاب كحجينك gobolka Togdheer Siciid Axmed Maxamed Raagi taliye ku-xigeenka qaybta booliska ee gobolka Togdheer iyo isuduwaha wasaaradda deegaanka ayaa howlgal lagula dagaalamayo dhuxusha iyo xidhashada dhul daaqsimeedka ka soo fuliyay galbeedka Seeraha Aroori ee gobolka Togdheer. qorshahan ayaa qayb ka ah dadaal xoogan oo maamulka gobolka Togdheer dagaal adag kula jiro xidhashada seerayaasha dhuxusha iyo xoolo daaqsinka oo si gaar ah loo xidho iyo deegaameynta cusubba. mas'uuliyiintan oo ka hadlaya howlgalkan waxaa hadaladoodii kamid ahaa waa bishii 17keedii waxaanu joognaa Aroori galbeed waxaana la socdaa gudoomiye ku-xigeenkii gobolka taliye ku-xigeenkii qaybta booliska iyo wasaaradda deegaanka waxaan u soo ambabaxnay saaka waana howlgal ka fulinayna Aroori galbeed oo laga sameeyay tuulooyin sharci darro ah. dhulkaas waa dhul xoolo daaqeen ah marka taarka Arooriyaha hooldi garoonka la xidho waa dhulka xooluhu daaqaan. markii horena waxay ahaan jirtay seere oo seere xilliyeed bay ahayd dhulkani tayrtiina la xidho xagaag gugiina la xidho jilaalkii iyo xagaagiina xoolaha loo furo. marka waxa weeyaan waxa laga sameeyay tuulooyin si sharci darro loo abuuray tuulooyinkii baanu saaka baabiinay waxaanu kala ka soo baabiinay godad barkadeed oo laga qoday oo iyagana sharci darro lagu qoday. marka dhulkaasi waa dhul daaqeen maaha dhul tuulana laga sameyn karo magaalana laga sameyn karo maaha. waxaanu dadweynaha gobolka Togdheer degan uga digaynaa anagoo howlgallo fara badan soo fulinay inaanu deegaankan ahayn deegaan magaalo qaadaya. waa 3 magaalo dhexdood kaba dheere kala dhac iyo ceeg bilcile dhexdooda weeye. waa 3 deegaan dhexdood oo 3 magaalo dhexdood weeye. meel magaalo qaadi karta maaha. dhulku wuxuu nagu qaadayaa in la daaqo oo aan la xidhin oo la magaaleynin. dadka waxaan uga digaynaa in ay dhulkaas sameeyaan wax magaalo wax tuula wax barkada cidii waxa ku kacday sameysana insha Allah waxaan u ballan qaadaynaa annaga iyo maamulka gobolka iyo bileyskuba in sharciga la horkeeno talaabo sharciyan laga qaado. howlgal inagu hogaaminayo lagu baabiinayay deegaameyn sharci darro kuwaasoo ku yaala banka Arooriyaad waxaanu soo baabiinay 3 tuulo oo la deegaameeyo deegaan sharci darro iyo baraaga sharci darro iyaga laftoodu si uu cabayn hawshaas loogu soo fushay insha Allah bismillaah kariim. waxaanu bulshada gobolka Togdheer gaar ahaan deegaanka kaba dheeriya gagaarkiisa ka codsanayna ku wargelinay inay ilaaliyaan deegaanka oo runtii muhiimad u leh xoolahooda. waxaanu faraynaa ciddii dambe hawsha ku tallaabsata in laga qaadi doono tallaabo sharci ah. saaka waxaanu fulinay operation howlgal baan u baxnay waxaan lagu helinayay taliye ku-xigeenka qaybta gobolka bileeska gobolka Togdheer isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada. waxaanu tagnay 3 tuulo 3daasna waxay ahayd tuulooyinka sharci darrada ah waanu baabiinay. waxaanu halkan faraynaa shacabka reer Burco inay mamnuuc tahay oo sharci ahayn ilaa deegaan cusub deegaanaysiga cusub gobolka kama jiro deegaamada kale ay ku harsan yihiin. waxaanu leenahay waa inaad ka sii diyaar garowdaan oo ka furfurataan. Cabsaaq Faarax Cabdilaahi TV qaranka Soomaaliland Burco.